رحمتك عايهي الله وقيل بآن runtii wacan oo wanaagsan daawadayaal idinkiiba meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo shabakada wararka ee mahiganews.com ay idinka soo diyaarisay barashada deegaanada ay ku duugan tahay taariikhda aabayaashii hore ee ummadda Soomaaliyeed oo khaas ku ah gobolka Sanaag gaar ahaan daawadayaal waxa barnaamijkan markii ugu horeysay uu si toos ah idinku daafuraya si aad uga ogaataan goobta uu ku duugan yahay Allah u naxariistay qabriga ama xawaalka Sheekh Gurgure madaxweyne dir oo ka mid ah qabaa'ilka Soomaaliyeed ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya qabriga Sheekh Gurgure oo ku yaala deegaanka beeralayda tuulada Gugur ee waqooyiga degmada Argabo ayaa waxa dhawaan halkaasi gaaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka Soomaaliland Maxamed Sheekh Umar iyo wafdi uu hogaaminayo oo hawlo la taxalluqa dhanka dalxiiska ku mariyay qaar ka mid ah goobaha ugu bilicda iyo muuqaalka dheer Soomaaliland iyo waliba dhanka taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa deegaanada taariikhiga ah ee Gugure iyo Shumax oo dhanka waqooyi kaga beegan magaalada Argabo ee xarunta gobolka Sanaag أنا أقول كل شيء في ماني كان كم العادة كده جت طبعا بيرتم من بالي خبرت على كم قناة لكن الحادث كذي الله برجع على الدقيق كذي قبل كنا واحد بس من حصص يا أنت هني بطلع من بيته كذي يا كواس مركز قبل كواس gurgure waa sidaan odayadii noo sheegeen وحواشي Gurgure Gugur balaya waxa loogu bixiyay baa xawaalka marka odayada hore weey waxay yiraahdeen xawaalka wuxuu ahaa Gurgure waxa dabadna saasa Gugur loogu Gurgure madaxweyne dir imisa ma ka taqaaneen inuu Gurgure yahay sheekhan anagu dee waa u garaacsanay waa eerkayagii kaayagii anaga na dhalay wasiirada anaga noo sii sheegay wala siyaaraysay imaadaan ma garanaysaa baa intaas loo